الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينه ku-xigeenka dowladda Puntland, gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ee baarlamaanka Puntland, wasiirada dowladda federaalka ah, labada aqal ee dowladda federaalka ah, xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland, ra'iisul wasaarihii hore, madaxweynayaashii hore ee Puntland, marti sharafta dhammaantood oo isimadu ugu horeeyaan dhallinyaradu ku jirto aqoon-yahanka iyo siyaasiyiintu. waxaan si gaara u salaamayaa intaa marka laga soo tago ciidamada qalabka sida, saraakiishii ka qayb gashay shirka oo runtii talooyin wax ku ool halka soo jeedisay, iyo ciidamada qalabka sida ee ammaanka guud ee Puntland iyo kan gaarka ay xaruntan sugaya oo jiritaanka nabadda iyo nolosha iyo horumarka aan haysanna asaaska u ah. waxaan sidoo kale salaamayaa saxaafadda oo door weyn ciyaartay, guddigii qabanqaabada, jaamacadda BSU, cid walba oo halka ka qayb qaadatay, wax yar iyo wax badan intaba waa salaamantihiin, waan inii mahadnaqayaa. waxaan aad u jeclahay inaan halka iyadana ka xuso dhammaan intii ka soo shaqaysay aasaaskii Puntland oo runtii waqti iyo maskax iyo maal iyo muruq gelisay oo ugu mudnaayeen isimadii dalka xilligaa wixii noolaa iyo cid kasta oo kula ka soo qaadatay tabantaabadii Puntland lagu aasaasay. waxaan si gaara halka uga ducaynaynaa intii dhimatay oo islaan maxamed islaan ciise uu horeeyo, madaxweynayaashii soo maray Puntland ee geeriyootay, madaxweyne cabdullaahi yuusuf iyo madaxweyne cadde. inta nool waxaan u baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad oo ugu mudan yahay madaxweyne maxamed cabdi xaashi oo runtii da iyo xanuun la sheega ma hayo, waan soo arkay, laakiin gabow baa haya. inta kaleetan waxaan u rajaynayaa caafimaad iyo shaqo wanaagsan. dhammaantiin waxaan rajaynayaa guushaas aan gaarnay inaan mar walba xasuusanaano ciddii ka soo shaqaysay oo aan la ilaawin. runtii waxaa halka ka soo baxay waa taladiinnii. waxaa halka la isugu yimid waa gogol wada tashi. marka la leeyahay waa la wada tashanayaa, Puntland cid laga tegey ma leh. Puntland kuwa ku jira xukuumadaha heer federaal iyo heer Puntland iyo bulshada qaybaheeda kale, kuwa xukuumadda halka hadda ka jirta mucaarad ku ah iyo muxaafidkeeda, kuwa Puntland kuwa federaalka ka jira mucaaradkeeda iyo muxaafidkeeda, isin, dhalinyaro, waayeel. waxaa keliya oo halka looga soo qaybgalaya waa inay yihiin dadka reer Puntland ku bahoobay iyagoon kala sooc iyo kala saarsaar lahayn, oo ay u dhan yihiin halka, oo ay ugu dambeeyeen ka soo qaybgalka Puntland midnimadeeda dhuleed iyo dadeed. waxaa ugu dambeeyey degmooyinka Tawfiiq iyo Saaxo, intaba halka waa lagu dhammaa. taas waxay muujinaysaa in wada tashi dhab ah u ah. markii la yidhaahdo ha la wada tashado, taladu waa ay kala duwanaanaysaa. maalmihii u dambeysay waxaad ka dheehanayseen hadallada halka ka baxaya aragtiyo kala duwan iyo qorshayaal qof walba u muuqda. doodihii shalay la galay waxay muujinaysaa dimuqraadiyadda iyo garaadka reer Puntland. waxaad og tihiin oo halka markhaati ka tihiin qaybaha qaybtood qaar baa gacan iskula tegay doodaha xamaasadooda iyo heerka taagay. waa sharaf. Puntland waa kala ra'yi duwanaan kartaa, waa isku diidi kartaa, laakiin ma kala tegi karto. ma kala tegayno, midnimadeenna waa dhowraynaa, mar walbana waa wada jiraynaa haddii Ilaahay. waxaa halka aad loogu naxnuuxsaday Puntland ahdaafta loo aasaasay. waxaa la yidhi waa gaartay, waxbaa qabyo ah. midnimadii Soomaaliya weli waa kala dhantaalanta, waa qabyo. degaano Soomaaliya ka mid ah waxay leeyihiin waa go-ayno, baadigoob bay u baahan tahay. waxaa lagu aasaasay ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka. labadaba waxbaa ka nool, laakiin waxbaa qabyo ka ah.
marka reer Puntland waxaan u sheegayaa geediga ay ku jirteen marxaladiisii ma soo xirmin wili way socotaa yaan la daalin loo dhabar adeego wixii lagu yaqaanay oo ah ka shaqaynta midnimada marna ka tanaasulin wixii halka laga soo jeediyay idinka soo jeediyay waxaad u soo jeediseen golayaasha dawladda Puntland anoo magacooda ku hadlaya wixii aad soo jeediseen waan aqbalnay wixii ka hagaagsanna waan furin doonaa wixii u baahan toosinna waan hagaajin doonaa kalsooni buuxda lagu qaba in aan taladiina aanan dayacayn oo aysan noqonayn waxaa soo jeediseen oo keliya waxa ugu muhiimsanay talooyinka la soo jeediyey in Puntland sidii lagu yaqaanay dowrka ay ku leedahay hogaaminta iyo wax ka dhiska dawladnimada Soomaaliyeed inay kaalinteedii aysan dib uga dhicin horena waa u ballan qaadeenaa anoo taladiina ka duulaya waxaan ku dhawaaqayaa gogol shir aan u qabanno dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka inay isugu yimaadaan magaalada Garowe oo aayaha Soomaaliya iyo marxaladda cusub ee cakiran ay u cirbixiyaan waan rajaynayaa in maamulada iyo dawladaha la doortay ay ku filan yihiin marxaladda adag Soomaaliya inay ka gudbiyaan waa hadday la tashadaan dadkooda annagu Puntland waxaan ballan qaadayaa taladiina geyn doonaa gogoshaas marka la yimaado waxaan ka rajaynayaa dadka kale oo mas'uuliyiinta ana talooyinka dadkooda inay la yimaadaan haddii dadka taladooda la maqlo turxaan badan oo hadda jirta iyo madmadow ay baxaysaa dalkan qof iyo koox waa ka weyn waxa kaliya oo lagu dhaqan karaa waa wadajir isdagaysi ismaqal isku dhibrin iyo in tala midaysan la wada qaato waxaan aad ugu baaqayaa in dadka reer Puntland ay hormuud ugu noqdaan ummadda Soomaaliyeed inay badbaadiyaan inay mustaqbalkooda ka shaqeeyaan inay maaragtay taladoodana ay meeshaas geeyaan shirkan shir wada tashigo Puntland cidna ka caban mayso cidna u caban mayso waxa ay ka tashanaysaa danaheeda Puntland waxay wax ka talinaysaa danaha Soomaaliya waxay wax ku biirinaysaa ummadda Soomaaliyeed wanaagooda iyo horumarkooda waxaan dhageysanaynaa cid kastoo naga fikri duwan waxaan jecelnahay khilaaf kasta oo dad kale oo reer Puntland ay noo dhaxeeyo wada hadal iyo isqancin inaan ku gaarno oo xabad iyo qori aad meel ugu gaari karin waxaan runtii wixii sharweynaha la oran lahaa idinka yiri warmurtiyeedkiina ku soo bandhigteen waan rajaynayaa warmurtiyeedkaas waa tala soo jeedin dad kala duwan ay soo jeediyeen ninna yuusan filan sida uu jecel yahay kaliya inuu ku arko wax uu dhibsadana wuu arki wax uu jecel yahayna wuu arki laakiin waxaas waxa la rabaa inta adiga kaaga aadan inaad ka qabatid waxa ugu muhiimsanna waxa weeye waa wada jirkeenna midnimadeenna qodobka ugu muhiimsan oo halka ka soo baxay oo runtii dawladdu ay ballan qaadayso waxa weeye tabashooyinka la qabo aanan ka gabanay siday tahay aan u abaarno waxa ugu weyn aan aragnay idinkana waad aragteen oo wax badan waxa lagu xallin karaa markii laga guuro nidaamkii habka beelaha oo loo guuro nidaamka xisbiyada badan oo dadka taladoodu dadka ay rabaan ay soo doortaan waxaan rajaynayaa dad la xisaabtami karo inay halka ka soo bixi doonaan waa qodob aad u muhiimsan waxa iyadana muhiim ah hay'adaha dawladda adkayntooda iyo dib u habayntooda maadaama muddo dheer ay soo jireen iyadana waxay u baahan tahay in gacan weyn la iska siiyo dhaqaalaha oo aasaaska ummadii ay meel ku noolaato ama dawladda ku jirtana in dadka reer Puntland ay ahmiyad gaar ah siiyaan sidii dhaqaalaheena iyo ilaheena dhaqaale aan u kabacsannahay runtii maanta oo dhan baa la fadhiyey wax wanaagsan oo lagu farxaa ka soo baxay waxaan aad u fiirinayay maalmihii la joogay talada waxaa ka muhiimsanaa dad muddo badan iswaayey ayaa isku arkay halka waa la sheekaystay waa la kaftamay waa la dooday waa la kala carooday laakiin waxaan rajaynayaa annagoo gacmaha iswada haysan inaan howlkan ka bixi doonno Soomaalina waxa ay naga sugaysay inay naga heshay waan anigu qabaa dadkii soo shaqeeyay waxaan rajaynaynaa waddo cusub oo guul ah iyo annagoo wada guntana fulinta qodobadii halkaa laga soo jeediyey intii la kari karo oo dhan
in gacan la isku siiyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad fikirkiina u dhibateen sida aad ugu dulqaadateen waxaan rajaynayaa in miisaanka xasanaad ilaahay inuu igu daro wixii aad qabateen puntlandna waxaan u rajaynayaa waa cusub iyo horumar bilow ah oo kii hore ka ballaaran dadka soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa degenaansho iyo dowlad sharci iyo kala dambayn iyo dimuqraadiyad ku dhisan oo aan la isjoogin la iscaburin fariinta keliya oo aan diraya waxa weeye colaadaha ka socda dalka soomaaliya in la joojiyo cid kastoo wada weli si gaara dowladda federaalka waxaan uga codsanayaa colaadaha gobolka gadow inay ilgaara ku egto xal kuma imaanayo burbur baa ku imaanaya waxaan rajaynayaa colaadaha in la joojiyo hadday laba beelood u dhaxayso hadday laba maamul u dhaxayso iyo haddii cid kale u dhaxaysaba aad baan u rajaynaynaa inaan colaadda ka soo daallay waxaa keliyoo rabnaa inaan u midowno waa kuwa diinta iyo dowladnimada iyo dadnimada diidan ee xag jirka ah inaan dalka qaban kuwaasaan rabnaa inaan u midowno khilaafaadka siyaasadeed waxaan ku dhammayn doonaa wada hadal iyo is-afgarad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu